adna nuguma cusbid maxamedna naga maarmi maayo annaguna waxaan ka tixraacayaa wadaadkii igu horreeyay yidhi xantiina ma wanaagsanee anigu waxayga sheekaan ku gudbiyaa sheekaan idinku gudbinaya horta waxa weeyaan qofku haddii wax u kacaan oo magac loo bixiyo oo uu waxaasi hirgalaan si maaragtay looga maydhaa waa adagta ninka waraaba liyaho eedda waxaa la saaraa habar dugaagoo dhan waa waraabe waxaan sheekaan beri ka sheekeeyaa layahaa waraabihii toobad keenay waxaa layahaa waraabihii toobad keenay waraabaa beri toobad keenay wuxuu iska daayey hilibkii uu cunayey khaasatan adhiga oo uu si fiican u layn jiray ayuu u yimi idihii way heshiiyeen idii mudduu la daaqay tusbaxiisuusu taa wardayay intaa riyaa loogu taag waayey sida qodan biyuhu hadday nooga didsan yihiin oo kale ayaa looga taag waayey inay la daaqaan maalintii dambe waxgarad ido waa walanka macasha weyn ruxee ayuu u tegey isagoo dacwo ah uu yidhi war anigu waan toobad keenay waana iga war haysan intaasoo sannadood baynu wada daaqaynay lax idinkama cunin bal riyahani waxay iga yaacayaan weydiiya ee laygu taag waayey mase qaban kartaanoo idinku niman u taag helaya ma tihin haa wayaan waxaan la isku kaayi lahaa adhi haddaannu idiya riyanahay odayaashoodana annaga weeye annagaa odayaashooda u tegaynaa siday u sii socdeen bay u tageen waxgaradkii riyaha waa orgigadh waaweyn way la hadleen waxay wareerda ninkii waraaba uu toobad keenay waa kaa nala daaqaya nagama cunin weligii intaasoo sannadood buu nala daaqayo nayl maxaa uga cararaysa kaalay oo la daaqa oo la cuna waxay yidhahdeen waanu taladiinna waanu qaadanaynaa waanu ogollay walaalayaal berri laga bilaabaan la daaqaynaa tusbaxaasuu sito ee uu ku wardiyayo noo weydiiya wuxuu ku samaysan yahay walankii macasha ruxaya ayaa u yimi waxa way yimaadeen waraabi waxay nimankii waa dhow yahay waanay nala heshiiyeen way kula daaqi doonaan waxaad noo xidhan la qura tusbaxaasaad ku wardiyaysa wuxuu ka samaysan yahay inaad noo sheegto waraabi baa qoslay ase maxaa qoslaysaa kuwaasi ma dhowa buu yidhi kuwa heshiin mayno maxaa dhacay bay u tagoo u sheego waxaa ku tahan tusbaxani wuxuu ka samaysan yahay ceesaantii u dambeeyaan cunay hilibkeedii oon taxday waxay u tageen iyagu dambay fahmina waa idee riyii bay u tageen mayagoo maxabsa lulaya waxay ku yidhaaheen ninkii waa kaa waa ceesaantii u dambeeyey ee cunay ayuu ku wardayayaa waxay yidhaaheen dabad riyi war annaga ninka hilibkayga ku wardiyaya la heshiin mayno horta innaga mar baa waxay noo kaceen waynu toobadkeenno waanuga ceebka saliim baynu nahay tusbax hilibana inagu ku wardiyi mayna mid khayraynu ku wardiyayna wasiirka waxaan leenahay ha naga didin marka hore waa nalaga didaa marka dambena waa nalala degaa maxamed naga tegi maayo hadda waa kaas waad arki doontaa adiguna waadna baran doontaa barasho horteed hayno cambaan liin shaqaalahana waxaan leeyahay shaqaalaheenna waa shaqaalaha u wanaagsan caalamka waa shaqaalo u adkaysta dhibaato kasta waxaa idhahaa wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo hanuuninta ummadda qaybisa wasaaradda shaqaalahoodu birta yahay u damqanin macaluusha tabinba lacagta ku dherga ee arkay maqlayda bal nimaan gaajoonaynba qaaraan mushahar qaadan baad arki doontaa wasiir 3 sannadood oo shaqaynaya had iyo hamiinba qaaran waan weli wax ku weydiinin marka waa dad adag waxaan leeyahay dallibax cagabaruur lagama adkaade wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu